waa xarunta murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka oo xaflad qalinjabina loogu sameynayo ku dhawaad 3,000 oo arday jaamacadeed ah. waxaa la wada haystaa jawiga munaasabadan ee ay ku luuqeynayaan fanaaniinta waabari oo ka hadlaya muhiimadda ay waxbarashadu leedahay ayaa dhagaha lagu wada culanayaa maamul, macallin, arday, waalid, madax iyo marti sharaf kaleba. khudbadaha hambalyo iyo dardaaran iskugu jira oo ardayda la siiyay kadib waxa ay wada galayaan sawirro xasuusa. qaarkoodna waxay isku diyaarinayaan in xaflad aysan ogeyn cid aan iyaga ahayn ay isbitaalka ugu dhigaan saaxiibkood Yaasiin Yuusuf Axmed oo ah arday ay isku fasal soo ahaayeen muddadii ay duruusta jaamacaddu socotay. isagu markii uu buuga jaamacadda la difaacday saaxiibadiis ayuu lugtiisii ku waayay qarax ka dhacay Muqdisho umana suurtagelin inuu maalintiisan farxo. Anise Cabdullaahi Maxamed waa maskaxda ka dambaysa inaysan Yaasiin ka baaqsan maalintan uu muddada dheer sugayay. maanta xaqiiqdii waa maalin weyn, waa maalin aan muddo sanado fara badan aan ku taameynay maanta oo kale inuu Ilaahay nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo. aniga iyo tiim badan oo la mid ah iyo dhowr kun oo arday ah, arday ka badan 2,000 waxaan maanta u dabaaldegaynaa maalinta qalinjabinta digriga koobaad ee jaamacadda Soomaaliya. Ilaahana ku mahadsan nabad nagu soo gaarsiiyay. laakiin haddana waxaa jira dareen kale oo gaar ah oo aan dareemayno haddaan nahay galaaska BA17I. xaqiiqda waxaa jira arday walaalkeen ah muddo dhowr sano ahna waxbarashadaan isla soo wadnay, saaxiibkeenna ah sidoo kale. waa ku haminaya inuu maanta kale nagala qayb galo farxadda dabaaldegana asagoo lugihiisa ku socdo inuu yimaado. wuu jeclaa, annagana waa jecleen, laakiin qadarta rabbi iyo duruufaha amniga ka jira magaalada Muqdisho ka baajisay. qarax dhawaan ka dhacay degmada Kaxda ayuu ku dhaawacmay wiilkaasi. waxa lagu magacaabaa Yaasiin, wuxuu ka tirsan yahay ardayda 17I. wallahi wuxuu ku waayay xubin muhiim ah oo lugtiisa ah, marka aadan uga naxnay haddaan nahay galaaskii. xoogaa farxadda waxaa moodaa maanta dareen inay xambaarsan tahay maadaama qof nala mid ah oo naga mid ahaay oo saaxiibkeen ahaay oo buuggii nala difaacday, laakiin qalinjabintii aanan imaan oo curyaamay oo dhaawac halis uu soo gaaray, haddana uu ku jiro mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho. waxay si ficilay noo tusayaan dhallinyaradan xigmaddii oranaysay farxadda dhabta ah maaha inaad heshid maal iyo mansab ee waa inaad ka farxisid qof kale oo walaalka ah. tani waa dareen uusan qofna afka ka sharaxi karin. qof kasta waa ku imaan karaa marka aad faraxsan tahay ama aad guulaysato, laakiin kuwa ku dib istaaga ama ku garab istaaga marka aad niyad jabsan tahay ayaa la oran karaa saaxiibka dhabta ah. maanta waxaa la joogay Yaasiin saaxiibadiis waxayna xaflad ugu qabteen sariirta uu jiifay isbitaalka. waan idinka mahadcelinayaa asxaabta aan muddo dheer galaaska islaamnimo ugu soo booqday maanta. waxaa loo jeedaa isbitaal Digfeer. kabacdi markii farxaddii iyo reerayntii ay u soo dhammaatay iyo qalinjabintii waxay go'aansadeen in anigana sidoo kaleeta aan farxadda la qaybsado. aad baan uga mahadcelinayaa. runtiina ma ahan bilow hadda ah, maatankooda muddo soo jiitamayay, gargaar bay geysteen ama dhaqaalaha ahaato ama maxaa loola jiray saaxiibtinimay muujiyeen calaa kulli dalaalkii bay muujiyeen. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. ma ogeyd inay ku soo socdaan lagu sheegay isu sheegin way ugu gaadeen. haddaysan igu gaadanayn waa aan la fiigo ma anaas dhigteen waa usii yargeelgalow lahaa xoogaa. Yaasiin in loogu yimaado booqasho ku saabsan dhaawiciisa ma ahane ehladiisu ma aysan rajaynayn arrintan oo kale. duruufta ay wax ku baranayaan daa'irta Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan waa mid aan tiro lahayn. waxaase walwalka ugu daran ee haysta carruurta iyo waalidiintooda uu yahay marka ay guryaha isku soo macsalaameeyaan iyagoo isku faraxsan ma isku soo nabad noqon doonaan mise farxaddii ay ku kala tageen ayaa isku bedeli doonta mar qurac murugo iyo mahadho muddo dheer maskaxdooda raadayn doonta qoysaskaasi inta ka harta. Yaasiin waa nin dhallinyaro ah oo uu waqti badan hor yaalla haddii cimriga uu Alle u sii daayo, waxaana marka uu isbitaalka ka soo baxo u bilaabanaysa habnololeed cusub oo kiisii hore ka duwan. dabcan waxa uu u baahan yahay shaqo uusan ku dhibtoon. Maxamuud Soofaysane, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking.
degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. waa xarunta murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka oo xaflad qalinjabina loogu sameynayo ku dhowaad 3,000 oo arday jaamacadeed ah. waxaa lala wada haystaa jawiga munaasabadan heese ay ku luuqaynayaan fanaaniinta waaberi oo ka hadlaya muhiimadda ay waxbarashadu leedahay ayaa dhagaha lagu wada culanayaa maamul macallin arday waalid madax iyo marti sharaf kaleba. khudbadaha hambalyo iyo dardaaran iskugu jira oo ardayda la siiyey kadib waxa ay wada gelayaan sawirro xasuusa. qaarkoodna waxay isku diyaarinayaan in xaflad aysan ogeyn cid aan iyaga ahayn ay isbitaalka ugu dhigaan saaxiibkood Yaasiin Yuusuf Axmed oo ah arday ay isku fasal soo ahaayeen muddadii ay duruusta jaamacaddu socotay. isagu markii uu buuga jaamacadda la difaacday saaxiibadiis ayuu lugtiisii ku waayay qarax ka dhacay Muqdisho umana suurtagelin inuu maalintiisan farxo. Anise Cabdullaahi Maxamed waa maskaxda ka dambaysa inaysan Yaasiin ka baaqsan maalintan uu muddada dheer sugayay. maanta xaqiiqdii waa maalin weyn waa maalin aan muddo sanado fara badan aan ku taameynay maanta oo kale inuu ilaahay nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo. aniga iyo tiim badan oo la mid ah iyo dhowr kun oo arday ka badan 2,000 waxaan maanta u dabaaldegaynaa maalinta qalinjabinta digriga koobaad ee jaamacadda Soomaaliya. ilaahana ku mahadsan nabad nagu soo gaarsiiyay. laakiin haddana waxaa jira dareen kale oo gaar ah oo aan dareemayno haddaan nahay galaaska BA17I. xaqiiqda waxaa jira arday walaalkeen ah muddo dhowr sano ahna waxbarashada aan isla soo wadnay saaxiibkeenna ah sidoo kale waa ku haminaya inuu maanta kale nagala qayb galo farxadda dabaaldegana asagoo lugihiisa ku socdo inuu yimaado wuu jeclaa annagana waa jecleen laakiin qadarta rabbi iyo duruufaha amniga ka jira magaalada Muqdisho ka baajisay. qarax dhawaan ka dhacay degmada Kaxda ayuu ku dhaawacmay wiilkaasi waxa lagu magacaabaa Yaasiin wuxuu ka tirsan yahay ardayda 17I. wallahi wuxuu ku waayay xubin muhiim ah oo lugtiisa ah marka aadan uga naxnay haddaan nahay galaaskii xogaa farxadda waxaa moodaa maanta dareen inay xambaarsan tahay maadaama qof nala mid ah oo naga mid ahaay oo saaxiibkeen ahaay oo buuggii nala difaacday laakiin qalinjabintii aanan imaan oo curyaamay oo dhaawac halis uu soo gaaray haddana uu ku jiro mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho. waxay si ficilay noo tusayaan dhallinyaradan xigmaddii oranaysay farxadda dhabta ah ma aha inaad heshid maal iyo mansab ee waa inaad ka farxisid qof kale oo walaalka ah. tani waa dareen uusan qofna afka ka sharaxi karin. qof kasta waa ku imaan karaa marka aad faraxsan tahay ama aad guulaysato laakiin kuwa ku dib istaaga ama ku garab istaaga marka aad niyad jabsan tahay ayaa la oran karaa saaxiibka dhabta ah. maanta waxaa la joogay Yaasiin saaxiibadiis waxayna xaflad ugu qabteen sariirta uu jiifay isbitaalka. waan idinka mahadcelinayaa asxaabta aan muddo dheer galaaska islaameen oo ugu soo booqday maanta waxaa loo jeedaa isbitaal Digfeer. kabacdi markii farxaddii iyo reerayntii ay u soo dhammaatay iyo qalinjabintii waxay go'aansadeen in anigana sidoo kaleeta aan farxadda la qaybsano. aad baan uga mahadcelinayaa runtiina ma ahan bilow hadda ah maatankooda muddo soo jiitamayay gargaar bay geysteen ama dhaqaalaha ahaato ama maxaa loola jiray saaxiibtinimo ay muujiyeen calaa kulli dalaasii bay muujiyeen. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. ma ogeyd inay ku soo socdaan lagu sheegay isu sheegin way ugu gaadeen haddaysan igu gaadi lahayn waa aan laftiga ma aanas dhigteen waa usii yargeergelin lahaa waxoogaa. Yaasiin in loogu yimaado booqasho ku saabsan dhaawiciisa ma ahane ehladiisu ma aysan rajaynayn arrintan oo kale. duruufta ay wax ku baranayaan daa'irta Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan waa mid aan tiro lahayn. waxaase walwalka ugu daran ee haysta carruurta iyo waalidiintooda uu yahay marka ay guryaha isku soo macsalaameeyaan iyagoo isku faraxsan ma isku soo nabad noqon doonaan mise farxaddii ay ku kala tageen ayaa isku bedeli doonta mar qura murugo iyo mahadho muddo dheer maskaxdooda raadayn doonta qoysaskaasi inta ka harta. Yaasiin waa nin dhallinyaro ah oo uu waqti badan hor yaalla haddii cimriga uu Alle u sii daayo waxaana marka uu isbitaalka ka soo baxo u bilaabanaysa habnololeed cusub oo kiisii hore ka duwan. dabcan waxa uu u baahan yahay shaqo uusan ku dhibtoon. Maxamuud Soofaysane TV-ga Shabeelle Muqdisho. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta.
adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.